qaar ka mid ah dhalinyarada iyo aqoon-yahanka Somaliland ayaa magaalada Hargeysa waxay kaga dhawaaqeen urur cusub oo la magac baxay Dalsoor kaasoo ay sheegeen inay ku difaaci doonaan qadiyadda madax-bannaanida Somaliland iyagoo sheegayna in duulaan lagu soo qaaday jiritaanka Somaliland mas'uuliyiinta ururkaasi ku dhawaaqay oo hadalka iska daba maray ayaa sheegay ururka Dalsoor waa urur wadani loo aasaasay sanadkan 2017 oo hadafkiisu yahay inuu wacyiga ummadda Somaliland kor u qaado dhinaca arrimaha danta guud ee wadaniyada. ururka Dalsoor guud ahaan wuxuu ka kooban yahay 760 xubnood oo dhammaantood ah miidii iyo maaxtii dhalinyarada aqoonyahanka Jamhuuriyadda Somaliland. ururka Dalsoor waxa uu hiigsanayaa inay xubnihiisu gaaraan ugu yaraan 5,000 oo xubnood oo dhammaan gobolada Somaliland ku sugan wuxuuna xafiiskiisa guud ku yaalaa caasimadda Hargeysa Cimaaratul Khayr qolka 305. intaas waa hordhaca ururka waxaan u galay war saxaafadeedka xogtiisa iyo muhiimadiisa shacabka iyo hoggaanka Jamhuuriyadda Somaliland maanta ay Soomaaliland la soo noqotay madax-bannaanideedii ka luntay 1960 isla markaana ay la soo noqotay 1991 waxay go'aansadeen in aanay faragelin arrimaha u gaarka ah khuseeya dawladdii aynu madax-bannaanideena kala soo noqonay ee Soomaaliya. inkastoo shacabka Soomaaliland ahaa dacalka dulmana loo geystay xasuuqa iyo burburka ballaaran waxaana dhacday in social media baraha loo yaqaan ay ku faafiyaan warar been abuura iyo cabsi iyo jahwareer ay ku abuurayaan shacabka Jamhuuriyadda Somaliland. Saadaraada ururka wadaniga Dalsoor wuxuu go'aansaday inuu maanta daahfuro olole ballaaran oo wejigiisu koowaad yahay kan halkan maanta u fadhino shacab yahow wanaagsan oo goobta hadad hore u tiri anagu xamar dooni mayno xumaan u geysan mayno adigoo lagu geystay dib badan haddaba ogsoono maanta in kuwii hore ku dhibay ay maanta isu diyaarinayaan inay mar labaad masiirkaaga mustaqbalkaaga ay ka baabiyaan sida uga shacabka Soomaaliland waxaan leenahay hal baraarugo hana loo midoobo qarannimada iyo wadajirka Jamhuuriyadda Somaliland. laba olole ballaaran ayuu ururku maanta laga bilaabo ka sameeyaa social media wax loo yaqaano saawgeed dhammaan shacabka Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa inay baraha ama deegaladan ku leenahay sida Facebook iyo YouTube-ka ay kala socdaan xogahan soo galino isla marhaanta ay ka qayb qaataan. xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland waxaan aad uga codsanaynaa nagu gacan qabato taageero xoog iyo xoolaba leh isla marhaantana ay ku daran howlfudeydin saan u awoodno inaan ololahan u gaarsino dhammaan gobolada Jamhuuriyadda Somaliland isla markaana aan kor ugu tagno aan ka hortagno weerarada qaawan inaga soo socda madaxda Muqdisho artuuqdaha carsoo jeestadii la jalcala saaray wixii caga jugleynaya ahaa juliskiya cayda jirxuyo wixii la igu dhisaa kooma jeedo jujuubku ma cabaan oo shimbiro jaahil baa tahay mar labaad miyaa la igu jiqi jaraskii aan yaalay gobonimada waa loo jarwacay loona jiid go'ay jihaad iyo dib baa loo mariyo jaxar colaadeed jabhad iyo kul baa loo galiyo jaan kasto adaga jamjamay ku timid awgayo waan soo jabaye sidii laba dal oo jaara oo nabad ku joogtowda ayaabaan jantay meela jagi waa jannaya nuur mise waan isjiijiidanaa maba jaqowdaan maanta kadib haddii aan la yiraahdo waan u taaganahay difaaca qarannimada Somaliland waxaan leenahay markaa shacbi wanaag Soomaaliya iyo dhalinyarada arrinta ay suu keenkeena madal furan isuu keenkeena doodo isuu keenkeena saynu arrimaha loobi culus oo waliba xarfadaysan oo aan caadifad ku salaysan aqoon ku salaysan aynu uga jawaabi lahayn taas hayno ahaato ayaan leenahay dhammaan dhalinyarada Somaliland xukuumadana waxaan ku codsaynaa taageero aan u baahanahay Mukhtaar Ismaaciil Ali TV-ga Universal Hargeysa.